horta xasan mustafa isxaaq xasan toob waa walaal qalbi wanaagsan arrintaas sidoo raba ha ku sameeyo atoosh wuu guuriyey qofkoo doonaba ha u guuriyey atoosh yare iyo maslaxo meherkoodii goormuu dhacay inta badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي ونكسن مالي ونكسن دور ونكسن وحكستي كوتا ونكسن مقالك نديال عاصمات كودا ونكسن إلى كو زيادة دي المقسن تأمرك الله كقاضو هدي بربلا ميك لهايتي وحيابك الإسكجر جيران الله وحكاك بريا إلهي إنه كادو القاضو ها مركو غوري سديتانا سبسكرايب كتوغي وسي إن شاء الله تعالى أدباني تنجع لهي مالمان حوغا هواي وداق وصول نوري هذا اللي نجع لك مركي انت لغا سو تاغو مالمهان runtii waxa social media aad iyo aad qabsaday arooskii atoosh yare oo aan ka qayb galnay jimcaha hadda la soo dhaafayay videoga markuu idin soo gaaray laga yaabay adiga ahad am isniin ahad inuu ku yahay ha jimcii bay todobadii ahayd arooska markii habeenkii aan ka soo kala tagnay ilaa isbuuc kale waxa socotay buuqii khayl badan social media qabiilkiisa asxaab fara badan oo ila soo hadlay jiraan oo Ismaaciil arinta maxaa ka jiro maxaa ka leedahay waan u kaadiyay waan daawanayay wax kasto anigoo og oo ka dharagsan ayaa hadana daawanayay waxyaabaha socdaan dadkana daawada waxay isugu jiraan saddex nooc mid anaga naga aqli badan mid anaga la mid ah iyo mid naga hooseeyo arintan gabadhan maslaxo iyo atoosh horta si kale laaba ugu hambaliyay haddana waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay allah idinka dhigo kuwii isku barakooba is haysta is dhaqada allah idinka dhigo arinta oo muhiimada mudan waxay tahay inaad ogaataan horta Soomaali hadii aan nahay jilaaci jeesusnimo aniga horta bahashan kaasiyada horta biyo magalayaan jireed jilaac waxa ahayn adinka leeyahay karaba okay inta waa joking markii laga soo laabto maslaxo iyo atoosh waa laba qof oo gayaan ah oo isgeeya oo isku dhaqan ah oo isku gobol ah oo isku meel ah murar badan arkay la kala warwareejina la dhahayo waa reer Puntland qaarkood waxay dhahayn gabadhan waa reer mudug aan qabiil ma sheegay laakiin gobol baan sheegaa waa reer mudug qaarkood waxay dhahayn waa reer bari halka qaar kale ay dhahayn waa gabadh waa reer banaadir عاد كان كوايا ونوك لا مقوم ونوك وحين وحاني واكسينا ونوك واكسينا دكاين اوكي شوفين كده برويا اوكي سياو كلا دونا لوكال هدلاي الميدي يقول درنيد او الله يا waxay tahay qaarkood ba ay tamay qaarkood ba eegoobay qaarkood ba siyaabo kala duwan u hadlay horta ilaahay subhanahu wa ta'ala waa qadir maanta jireer ijlaana wala siman yahay in la iska helaana muhiimada ay tahay in la isfahmaa in midaal ogaado qof waliba Soomaaliyeedna ama caalamka kala duwan shucuubiyo kala duwan jiraan iyo qaabab la isku guursado qofba gayaankii inuu guursan karo hebel waa gayaankii anaga Soomaaliya nahay been la isku sheegay maanta aniga Ismaaciil Haaji ahaantayda sida aad ii aragtid iyo sida aan isku arko laba bay kala tahay aan si baan isku arka adiguna si baad ii aragtaa laakiin aragtidaas waxa ka muhiimsan beada anigu aan ku noolahay iyo jawi qaabka sidoo yahay horta xasan mustafa isxaaq xasan toob waa walaal qalbi wanaagsan arintaas sidoo raba ha ku sameeyo atoosh wuu guuriyey qofkoo doonaba ha u guuriyey laakiin wararka meelaha la wareegayo horta waa inaan kala saarnaa Soomaalideena inteena badan waxa dhahnaa views raadis arintaas ani hadaan ka soo hadli lahaa xaqiiqatan ana ogba inaad dhihi lahayd Ismaaciil Haaji views ba arinta ku raadinaysa ani waa kana waxay ii degan yihiin waxay ii jiraan umaleena 4 guri 5 guri 6 guri amal ii jiraan kaamiradeed inaan qaato u tagi karay oo soo wareysan karay waa dhigi karay hadii xilliga aan view aan rabo xaqiiqatan laga hadlaa mugtay aniga view hadii aan rabo atoosh muddo social media ku jiro joogay lahaw ama dad hadoo atoosh kalgacel ay u qabaan intuu soo guursan ka hor ayaa mobile si laha midayna isla fahno muhiim ah atoosh banaan buu joogay muddo wuxuu watay telefoon Samsung oo watay hadda markii arintan social media qabsatay
dadaa waxay u arkeen in arinta view laga sameyn karo ani maanta alxamdulilah rabbil caalamiin lacag inaan qaado walaalkay Catoosh iyo walaashay Maslaxo min iPhone waan u awoodaa inaan u gado aniga laakiin awoodeydu iyo ragnimadeedu ma inaan camera qaato oo video aan ka duubo aan dhaho waa booqday waxa ogay anigoo awooda in aan si hoose aan u guddoonsi karo inta fahamtay marka ani hadii view aan rabo meeshaas baan tagay laakiin dhabta raba inaan idin sheego ama aan idin kala hadlo waxa dhabta raba inaan idin sheego waxay tahay Maslaxo iyo Catoosh waa laba qof oo isku gobol ah sida doontiin u kala qaad adinka qofna ilaahay subhanahu wa ta'ala adigoo maanta anigoo habiye ah laga yaabaa informal qabiil kale inaan yeesho ani Ismaaciil ahaan waxa way dadka inta badan reedaynile badankood waxa way reexmar u tiriyaan xamar weyn reexmar jajab reebawda ali dhaha ani Ismaaciil ani waa soo mugta laakiin cidaan ka dhashana qaraabada tolka waa itirsadaan way ogyihiin oo walistirina koraal iskala socda ay iska soco waxa doonta sameey waxa doonta yal meesha doonta ka dhac laakiin qabiilkaagu marnaba kuma mooga oo waa kuwii ku og waa kuwii ka warqaba waa kuwii korka ilaa shanaya maanta ani hadii loo baahan yahay waaba la arkay waa lagu soo bandhigaa qabiilkaaga lafta ka tahay cidaada meesha galaan waxay gadaan dhan waa la soo qabanaa maanta qofna ma qarsoomo maanta qofna cidii kama qarsoomo marka walaalaha inta badan social media soo fariisanayay ee gabadha Maslaxa ku gafaayay ee qabiilaysan ahaan dusha ka saarayay ilaa ay ku madarnaaday kan inta soo fadhiisto horta Catoosh maanta waa nin ku faanaya qabiilka uu yahay kama faano dad waxa jiraan markay wax noqdeen qabiilkooda ka baxay hadii sabab diinta ka bixinba alxamdulillah way diinta hadii ka bixinba alxamdulillah laakiin waxay ka baxeen qabiilkoodii ayagoo qabiil aanan ogeyn sheegtay warmaanta ani formalkeyga qaabkeyga sideyda tinteyda dad baan u tirsanahay noocii doonan ha iyo arkaano sida doono ma ka bixi kari litacaarafu ana akramakum inda Allahi atqaakum laakiin muhadran in maanta wixii laga dhigo litaqaarafu maanta lagu dhaqmo ha intaan ka ogaa Ismaaciil ahaan aniga Maslaxo iyo Catoosh waa dad isku gobol ah ma idin kala qaad adinka fahmi kara waa dad isku gobol ah waa dad isleh waa dad maanta guuradii la dhahan isguursan kara Soomaalideena kala u imaaw waxaan ka bilaabay reer Banaadir horta gobolka Banaadir waxa waa wali isla degaa saasay tahay haddana iyadoo la isla dego haddana la isma guursado Furious maanta fiiri qofa wax lagu leeyahay rasuulkan alayhi salaatu wasalaam nasabiyada uu ka hadlay in guurka nasabiyada lagu xusho in diinta lagu xusho in quruxda lagu xusho inta ka ogahay waa inta laakiin maanta fiiri aniga Ismaaciil ahaan maanta cidiida ma iga aqbalayaan nimada markaan u hadalno waaya laga yaabay aniga in la ijaro hadda meeqa qoys fiiri meeqa qoys oo Soomaaliyeed oo inta isguursadeen maanta la diiriyay gabadha cidooda aan tagi kan xitaa dhowr tacsiin ka dhacday isan tagi karna ani garana hooyadeeda geeriyooday tacsiideeda maysan imaanin aabaheeda geeriyooday tacsiidiisa maysan tagin maanta ninka la qabo ilmay u dhalaysaa ninka la qabo ilmay u dhalay sababta cusuri dadkan waxay dhahan cusuri war waxaan waa dhaqan waxaan waa soo jireen diinteena hadii aan ku dhaqmi lahayn dalkeena sida ma noqdeen dalkeena sida ma ahaadeen dalkeena xaaladiisu meesha maanta uu taagan yahay ma taagnaadeen qof ama inta soo fariisto wuxuu leeyahay waa la isku diiday brother adiga iska bilaw adiga hadda hadlayo bal orod bal gabar oo qaraabo kale ama family kale aad bal cidaada waxay ku dhahan fiir su'aasha koowaad lagu dhahay waxay tahay kada ama waa ku deerinayna okay waa lagu deeriyay maanta fiiri meed ninkiisa mara saarto meed ninkiisa maanta mara saarto hadduu xun yahay iyo hadduu tuug yahay iyo hadduu wadaad yahay iyo hadduusan ahaynba meed ninkiisa mara saarto afantan amalena dhammaantiin aadaan idin jeclaa daawadayaal Maslaxo iyo Catoosh waa dad isgeeya mid kale ee soo laalaabato waxay tahay Maslaxo iyo Catoosh meerkoodii xaguu ka dhaxay meerkoodii anaga maan arkin meerkoodii waxa waay video adinkoo qadinay adinkoo wax xunaa su'aalaha badanaa soo laalaabteen ayay qayb ka tahay Catoosh iyo Maslaxo meerkoodii goormu dhacay
inta badan waxaa waaye salaad sidii kuu qabto aa loo dugtaa salaad sidii kuu qabato aa loo dugtaa meesha lagu kugu soo gashay aa lagu ogaa American already waa soo dhacay ha dhawaado ama ha dheeraado ilaahay wuxuu qasday xafladan inay qabsoonto inay dhacdo alxamdulilah rabbil caalamiin meerkiina waa dhacay xafladiina way qabsoontay maanta dood iyo buuq iyo qaylo adin kale qabo ayaga ma qabaan marka Atoosh iyo Maslaxo waxaan idin leeyahay hal mid haddii muuqaalkan idin soo gaaro midan idin leeyahay waxay tahay jilinka joojiya jilinka badan aad wadaan joojiya sharafkiina ismacadiina ku jirto maanta waxay tiin adinka ah in meel la soo istaago walaalahay noloshiina haddaad rabtaan hore inaad u wadataan jilinka hala joojiyo dhamaantiin aad idin jeclahay muuqaalkan halkan ku joojina intaan soo hadlayay haddii xoogaa risq qaadi ka dhacay ama aad idaawanay qalad aad aragtay iska kiisaama haddii aad xanuunsan tahay ilaahay caafimaad ama Allah ku siiyo haddii aad murugsan tahay murugta Allah ka qaado muuqaalkan muuqaalka xiga intaan isku iman doono aan idinka ka tagaynaa sidaa iyo nabad geliyo nooli kulanti dambe xiiso ah bye bye